macaanka waxaynu odhanaynaa macaanku waa xaalad guud oo sababta in sonkorta dhiigga u jirtaa inteedii ay ka badato. sonkorta dhiigga ku jirta oo inteedii ka badato waxay sababi kartaa xaalad aad u daran ama halis gelin karta caafimaadka qofka. waxaynu odhanaynaa macaanka waxaana aynu u qaybin doonaa noocyo kala duwan. noocyada macaanka aan u qaybin doono waxaa ka mid ah nooca koowaad ee la yidhaahdo type 1 diabetiska. type 2 diabetiska oo ah nooca labaad iyo nooca ku dhaca hooyada uurka leh ama xilliga hooyada uurka leedahay ee loo yaqaano gestational diabetiska. iyo nooc sonkorta ay inteedii ka badata ayna gaari weydo nooca qofka lagu magacaabi karo inuu macaanka qabo oo la yidhaahdo prediabetiska. noocan prediabetiska la yidhaahdo laba midkood ayuu noqon karaa inay sonkortani intay korodho ay macaan sababtay iyo inteeda ay ku eekaato ayaynu leenahay. haddaba waxaynu odhanaynaa xilliga aynu cuntada aynu cunayno carbohydrate-ka jirkeenu waa uu burburiyaa. marka la burburiyana waxaa soo baxa glucose-taas oo lagu daro qulqulka dhiigga. glucose-taas qulqulka dhiigga ayaa lagu daraa. haddaba dhinaceenu waxa uu soo daayaa insulin hormone la yidhaahdo iyadoo laga soo daynayo unug ku yaala dhinaceena oo la yidhaahdo beta cell. haddaba beta cellku marka uu soo daayo qofka caafimaadka qaba beta cellkiisu waxa uu soo daayaa insulintaas waxay si toos ah u tartaa target cellka iyadoo ku degtaa insulin receptorska markay ku degtana waxay furtaa cellska waxaana si toos ah u galaa ayaynu odhanaynaa glucose-tana jirku u isticmaala energy ama tamar. haddaba nooca koowaad ee macaanka waxaynu odhanaynaa beta cellkii uu ganacu lahaa ayaa la burburinay waxaana burburinay unugyada difaaca jirkeena ayaga oo ku khaldaya ama moodaya shay aan jirka ka tirsayn. sababta loo burburinaya ma cadda laakiin waxaa la yidhahdaa waxaa ka qayb qaata genetic factor ama hidde. waxaa la yidhahdaa nooca koowaad marka la burburiyo baynu odhanaynaa beta cellkii insulin fiican lama soo daayo. insulinta la soo daayana target cellka si wanaagsan uma tagto. markay tagtana glucose fiicanna jirka ma isticmaalo mana gasho. sonkortan waxay aad ugu badataa dhiigga. waxaynu odhanaynaa nooca koowaad wuxuu dhacaa xilli hore oo 20 sano xilliga hore soo dhaca calaamadihiisuna waa kuwa si degdeg ah u dhacayaynu odhanaynaa. haddaba waxaynu odhanaynaa nooca koowaad ee macaanka qofka waxaynu ku midnaa insulin injection waana qof mar walba baynu odhanaynaa insulin ku xidhan sababta awgeed waxaanu ku magacaabanaa insulin dependent inuu qofkaasi yahay. haddaba nooca labaad ee macaanka waxaynu odhanaynaa beta cellkii ayaa waxaa ku dhacaya in uu sidii loogu talagalay insulinta uu soo daaya jirka uu isticmaali waayo. sababtuna waxay noqonaysaa laba midkoodun in insulinta uu soo daaya target cellkii ay tegi weydo oo signal fiican ay ka heli weydo ama in receptorkii loo baahna ay ku dhegi weydo. sababta awgeed waxay ku badanaysaa glucose-tu dhiigga ayay ku badan doontaa. noocan waxaynu odhanaynaa waxaa dhacaya in insulintii la iska caabiyo. sababta la iskaga caabinayaana ma aha mid cad laakiin waxaa leedahay waxaa sababa genetic factor ayaa la yidhaahdaa ayaa sababa in insulintii la iska caabiyo oo unugyada jirkeena insulinta sidii loogu talagalo isticmaali waayaan. waxaa la yidhahdaa waxaa kaloo sababi kara baa la yidhahdaa risk factorska ka mid ah buurnida ama cuntadii oo si wanaagsan loo qaadan waayo ama cuntada caafimaadka qabaa la isticmaali waayo. waxaynu odhanaynaa noocan wuxuu ku dhacaa dadka waaweyn ayaynu leenahay ama 30 sano wixii ka badan calaamadihiisuna waa kuwa si tartiiba ku bilaaba. waxaynu odhanaynaa waxaana lagu management gareeya ayaynu odhanaynaa miisaanka qofka uu iska dhimo iyo cuntada carbohydrate-ka ah oo yareeya ayaynu leenahay ayaa lagu manage